cisbitaalka Hargeysa International oo ka mid ah cisbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa isla markaana ugu tayada wanaagsan dhinaca caafimaadka ayaa maanta waxa uu daafur adeegyo cusub oo soo kordhiyay munaasabad kooban oo loo qabtay daafurka iyo xadhigga jarista adeegyada cusub ee cisbitaalku uu soo kordhiyay oo ay ka mid yihiin mashiinka 4D Addison oo sahlaya in la ogaado xaaladda uu ku sugan yahay ilmaha yar inta uu ku jiro caloosha hooyadii aanu dhalanin. munaasabadan daafurka ee loo qabtay furitaanka adeegyada cusub ee uu soo kordhiyay cisbitaalka Hargeysa International waxaa ka soo qayb galay maamulaha guud ee cisbitaalkaasi Dr. Cabdiqawi Al-Shumeeri, maamulaha xarunta Kuwait ee magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Al-Macallimi, mas'uuliyiin ka tirsan cisbitaalkaasi, salaadiin iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu soo casuumay. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee cisbitaalka Hargeysa International Dr. Cabdiqawi Al-Shumeeri waxaana uu ka warbixiyay adeegyadan caafimaad ee ay soo kordhiyeen. طبعا هذا الجهاز هو يعني سلسلة من سلسلات التطوير في المستشفى الدولي. المستشفى الدولي الآن بدأنا بتطوير جراحة. qalabkani waxa uu sahli doonaa qaliimada lagu sameeyo kaadi mareenka xameetida waana qalabkii ugu horeeyay noociisa ee gudaha Soomaaliland lagu adeegsado. sidoo kalena waxaanu soo kordhinay qalab shaybaadhkaasi oo lagu ogaanayo xanuunada ku dhaca xiidmaha iyo xameetida. sidoo kalena mashiinkani waxa lagu ogaan karaa xaaladda uu ku sugan yahay ilmaha yar ee ku jira uurka hooyadii inta aanu dhalanin. حقيقة لدينا الآن وهذه من المعلومات الجديدة التي نبشر فيها sidoo kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay maamulaha guud ee xarunta Kuwait ee magaalada Hargeysa Dr. Cabdiraxmaan Al-Macallimi. اليوم نحتفل في افتتاح هذا الجهاز الجديد. maanta waxaanu halkan u joognaa furitaanka qalabkani kaasi oo ay rajaynayno in bukaanka si weyn uga caawinayo ogaanshaha dhibaatooyinka caafimaad ee haysta. waana qalabkii ugu horeeyay noociisa ee laga isticmaalo gudaha Soomaaliland. waxaan rajaynaynaa in qalabkani uu ka qayb qaato hawlaha samata bixinta bukaanada caafimaad. waxaan rajaynaynaa in qalabkani uu ka qayb qaato hawlaha la tacaalida bukaanada oo markii horeba cisbitaalka Hargeysa International uu ku caanbaxay. dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa xiriirka dadweynaha ee cisbitaalka Hargeysa International mudane Cabbaas Cabdiraxmaan Ismaaciil. waxa uu ka warramay tayada adeegyadan caafimaad ay soo kordhiyeen iyo waliba mashiinkani iyo maraarada ama xameetida oo si yar fudud lagu qalayo same day markaas lagu qalo ka baxaysi saacada ka bacdi dhakhtarka aanad ku qaadanaynin kharash badan iyo hawl badan jirkaagana aan la jeexin oo leysara oo runtii wax badan u soo qabtay si yar fudud qofku uu qabanayo. sidoo kale waxa hadda la rakibayaa wadnaha iyo tubekii la gelinayay ee loo safri jiray ee lacag badan loo bixin jiray ee qofka ama xinjirooga wadnuhu kaga dhaco ama wadnihiisu uu ku sii dhawaado inuu istaago ama waxyaabaha kale ku dhaca wadnaha ee u baahda in wax laga qabto ama si degdega qaliimo iyo tube la geliyo u baahda. runtii guud ahaan Hargeysa International Hospital wuxuu u taagan yahay inuu markastaba bulshada reer Soomaaliland uu ka kaafiyo inay u safraan dibadda. waa sida maanta halkan ku cad kuwan maanta yaala kuwa kale soo wadno kuwa badda berbere yaala intaasba waxa runtii waa maalgelin lagu sameeyo wadanka waa ummadda Soomaaliland oo loogu dhankooda iyaguna waxa halkaasi ka hadlay Suldaan Baane iyo sidoo kale mid kamid ah ka soo qaybgalayaasha xafladda waxay si weyn u bogaadiyeen adeegyadan cusub ee uu soo kordhiyay cisbitaalka Hargeysa International oo ka mid ah cisbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Hargeysa. waa dalka wax walba laga helayaa haday tan tahay haday tii wadnaha tahay waxyaabo badan. dhakhtar kale mid kale waxaan u sheegaynaa dhakhtarku waa gareer shahaadadiisa iyo qiimeyntiisa marka arto gareer aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqnaa hay'adda ARC oo mashaariicda oo dhan gacanta ku haysa oo ka mid nahay farxad weyn bay noo tahay qalabkan arkaysaan iyo waxan iyo sidoo kale bulshada bilaash lagu adeego qawaafil dibiya gargaarada indhaqalista waxyaabo badan aad iyo aad waa sharaf weyn iyo horumar dadka lagu talaabsaday. sawirkiisa oo ka muuqda ilmihii yaraa oo runtii dhaqdhaqaaqaya meelaha kasta oo jismka jirka ka midana uu sidaa u sawirayo runtii waa horumar wax weyn ah oo la taaban karo. dhakhtarka mustashfadana runtii dhakhtarka mustashfa Hargeysa dawlina daaima waxaynu ku aragnaa horumar joogto ah iyo maaragtay wax cusub inuu noo soo kordhiyo. Ibrahim Chakar, CBA TV, Hargeysa.